السلام عليكم وحن سلامة يا أمد إسلام كعامل كستو يتشوغان أمد الصوماليات حن كايم دي أنو الصومال لان بان كايم دي مقعيق وعاشا وآدن وحن لايقا قاطع عروتايدي لبا عرورة ولا يشد لي سالديق النيو هرقيسا أيا لايقو قراعي عروتنا وحايقا قاطع نينكي دالي والله يرهد محمد هاكار نينكا بري هورانو كلا تاقناي لبدا كونيشان يتبانك بيشي تدباد بانو كلا تاقناي dabadeedna wuxuu damcay inuu awlaadiga qaato 5 baan u dhalay 5 ilaa maalintii aan dhalay ilaa iyo maxaa la dhahdaa maanta awlaadeeda aniga haystay wuxuu damcay awlaadi inuu xoogiga qaato maxkamad baa isiisay maxkamadii maxay heeday muu tagin ciidan buu soo dalbaday ciidankiiba awlaadi laba igaga qaatay jeelka Hargeysa maxay saldhiga New Hargeysa ayaa la igu dhex garaacay carruurtii la igaga qaatay laba la igaga qaatay markaa wiiliga gabadh baa la igaga qaatay saldhiga dhexdiisa la igaga qaatay isaga ay xidhay 3 nin oo ilma adeeradii ah ayaa maxay heeday i garaacay oo habeenkii oo lili garaacayay oo carruurtii iga qaaday ninkii oo saldhiga dhex jooga ayaa carruurtii la siiyay 3 baan markaa kala soo cararay waxaan la soo hoosgalay dawladda Puntland ayaan la soo hoosgalay Soomaaliland waa dalkaygii maxaa la dhahdaa Puntland waa dalkaygii Soomaaliland waa dalkaygii waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi labada caruura ee xooga igaga qaatay Maxamed Haakar waa nin saxaaqa wuxuu ii soo wakiishay ciidan wuxuu igaga qaatay boolis saldhiga dhexdiisa la igu garaacay waxaan dawladda ka codsanayaa in carruurteeda la iga qaado labadeeda carruura bugtaan baan ku soo koriyay iyagoo bukaan haysanayay uu nacay markay bukeen uu iska daadshay maalintii caafimaadeen ay maxaa la qurux bateen waxbarasho wax walba ku daray ayuu maxaa la ii soo xoog sheegtay marka waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliland waxaan ka codsanayaa madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi carruurteeda labadeeda carruur ayna ninka la iga qaado Maxamed Haakar ma xishooda weeyaan waxa weeyaan fircoonka qarniga weeyaan waxa weeyaan dalkayga aan ku dhashay ciidan markuu ii dalbaday aan xamil waayo hooyaanahay ayaan uga yimiday ana uga yimiday wadanka waana jeclay aan wadankayga mana caaya mana cambaaraynayo dadkayga dalkayga intaba waan jeclay laakiin waan u adkeysan waayo waan uga yimiday saddexdaa ubada ayaa la soo fakadan la soo cararay waxaan la hoos joogaa calanka Soomaaliya calanka Puntland baan la hoos joogaa ummadda Soomaaliyeed baan la hoos joogaa waxbarasho haday tahay guri haday tahay ay degaan intaba haday tahay iyaga la hoos joogaa waxaan doonayaa walaalahayga muslimiinta in carruurtaasi waxbarashadooda iyo gurigay degi lahaayeen maadaama godkii aan deganaa bahal igu galay oo ka soo fakaday aan Soomaaliland maanta aan ka soo qaxay waxaan doonayaa in carruurtaasi waxbarasho la igu daro hooyanaha ilmahayga waan nacay inay kala gumaysato oo la qaybiyo naaga saa loogu qaybiyo waan diiday labada uu haysto oo uu gumaysanayna insha Allah marun bii Ilaahay gacanteeda ku soo celin doona carruurtaydaasi marka waxaan doonayaa labada saddexda carruur ee maanta aan gacanta ku haysto hooy ay degaan iyo maxay hayto iyo iskuul ay dhigtaan in noloshooda ina layga kafaara qaado aan waxaan ku hoos joogaa calanka Soomaaliya iyo dawladda Puntland ayaan hoos joogaa maanta shacabka Puntland dawladda intaba dawladda Soomaaliland shacabka Soomaaliland intaba waan la hadlayaa awlaadaydaasi ninka hala iga soo qaadan lahayn Maxamed Haakar waa fircoonka qarniga waa nin saxaaqa waa nin maxishooda waa nin aniga oo ooridiisi ahaa oo kala tagnay ummadda Ilaahay way kala tagaan Soomaaliland Maxamed oo dhanba way kala tagaan inuu xidho uu ciidan ii dhiibo oo yiraahdo garaaca naagta garaaca oo carruurta iga soo qaada ma yahuud baan ahay anigu mise Tigray baan ahay anigu axmaar baan naag Soomaaliland u dhalatay baan ahay anigu ku dhashay laakiin wuxuu ii habar wacday waxa weeyaan jananka ciidanka daba galan ninka la yiraahdo ayuu ii habar wacday in adeer ii hiili hooyo iyo ilmaheeda halka loogu kala hiilinay ma garanay anigu ma arag waligeyna hooyo iyo ilmaheedii oo laba qolo laga kala dhigayo loo kala hiilinayo dawladda Soomaaliyeed anu kuma arag magaalada cidna anu kama aqaano saddexda ciyaal fadligooda soo galay magaalada ilmahayga waan diiday inaan tuuro oo naaga gumaystaan oo iskaga tagon magaaladana meeshaan doonaan ku noolaado waan diiday oo isku kari waayay ilmahayga inaan meel kula dhinto god hadii aan galayna inay la galaan jannada hadaan galayna inay la galaan
ayaan ku tashaday anigu yaa iminka waxaan joogaa 2 maalmood ayaan joogaa magaalada qofna kama garanayo bes ummaddaas Soomaaliyeed ubadkayga inaan la soo hoos galo ku korsado cidna dambi kama gelin Soomaaliland waa dalkaygii waa dadkaygii waan jeclahay qofna weligeed dambi kama gelin weligeed xabsi leeguma xidhin intaan jiray wallahi inaan wali la xidhin ilaa ninka Maxamed Haakaro ay xidhay oo isla galoomo halagu taxo galoomo